xafiiska OIC ee Muqdisho waxaa la furay sanadkii 2010. Furitaanka xafiiska waxaa qayb weyn ku lahayd dhibaatooyinkii abaaraha markii dambena isku bedelay macluusha ee tobanaanka kun ee qof ku dishay Soomaaliya sanadkii xigay ee 2011. bishii Sebtembar sanadkii 2012 ururka OIC waxa uu deeq ka helay hay'ad samafal ah oo laga leeyahay dalka Sacuudiga laguna magacaabo Saudi National Campaigns. deeqdaasi waxay maalgelinaysay mashaariic 5 ah oo laga hirgelinayo Soomaaliya, kuwaas oo isugu jira waxbarashada, caafimaadka, horumarinta bulshada iyo daryeelka, beeraha iyo gurmadka degdega ah. waxaana lagu magacaabay mashaariicda horumarinta Soomaaliya. guud ahaanna waxaa loo qoondeeyay inay ku baxdo lacag dhan $72 milyan oo dollar. waxaana la isku raacay in hirgelinta mashaariicdan loo qaybiyo 3 qaybood oo wejigiiba ay ku baxayso lacag dhan $22 milyan oo dollar. wejigii ugu horeeyay ee mashaariicdan waxay Soomaaliya ka bilowdeen horaantii sanadkii 2013, waxaana loo qabtay in lagu dhammaystiro 5 sano. laakiin 5 sano iyo dheeraad kadib markii ay mashaariicdaasi bilowdeen, shirkadihii qandaraaska lagu siiyey inay ceelal qodaan, iskuulo dhisaan, kanaala dhisaan, xarumo caafimaad dhisaan, waxaa soo baxday inaysan mashaariicdaasi midkoodna aan lagu guulaysan in la hirgeliyo wejigiisii koowaad. xafiiska OIC fadhigiisa magaalada Jidda waxay garowsadeen in hawlihii xafiiska Soomaaliya aysan u soconin sidii loogu talagalay, mashaariicdiina aysan fulaynin, inkastoo haddana weli dhaqaalihii ku baxayay uu sidiisii u qulqulayo. waxay go'aamiyeen in hoos loo eego mashaariicdaasi. xilligaasina waxaa maamulka mashaariicda Soomaaliya madax ka ahaa Rami Inshasi oo ahaa madax xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC. Maxamed Iidle Sabriyana waxa uu ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska Soomaaliya. si guudna xafiiskooda waxa uu u hoostegayay nin lagu magacaabo Hisham Yusuf oo ah kaaliyaha xogayaha guud ee OIC u qaabilsan arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada. Ambassador Maxamed Idris Saban waa diblomaasi u dhashay dalka Djibouti. bishii Juun 2016 waxaa loo soo magacaabay inuu madax ka noqdo xafiiska OIC ee Soomaaliya. Maxamed Idris Saban markii uu yimid magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inuu markiiba la kulmay oo uu arkay dhaqaalihii hay'adda oo loo maamulayo si aan habboonayn, isla markaana ku tagrifal badan uu dhacayay. Process maanta laga sameeyo baardheer oo kaliya marka laga soo qaado ayaa waxa ah in dhakhtar loo sameeyo ceelna loo qadayo. Instead uu qof quri tagi lahaa uu soo eegi lahaa ama in dadkan baardheer mas'uuliyiinta ka ee dawladda Soomaaliyeed ee madaxdooda ayaa mashruucan loo dhisaya. intaan anagu kharash gelinaynay diyaarad tiirkii soo socda maxaan ku leeyahay security la raaciyo ninkaas way dabal qaata markay tageen oo ciidan baad kiraysanaysa. waxaa jira expenses ciidda leego overhead ciidda ka faro badan oo ku baxaya tegitaanka ninkaasi tagayo si uu meesha u soo eego bil walba. marka anigu waxaan tajribeeyay waxa ku ruwad in waxa soo kharash galayno maadaama waxaan inuu yahay wax aynu ka helayno falkan Soomaaliya la siiyey inuu mushaharadeena iyo helin cost-kan aynu xafiisku aynu ka helayno. anigu waxayna quma inaynu yarayno fanka xoog u yarayno inta badan uu galo wixii loogu talagalay intuu geli lahaa kharash mana yacni yaana la qaatiyo ciidamo la kiraysiyo waxyaalahaas. anigu markaa waxaan ka warhayaa ma jiray waxa ilaahay qolasti iyo walaan iyo dalcayl iyo dalcayl. markaas awshoon meesha waa meesha mushaharada laga kabo oo marka safar loo baxayo $3000 bal qaadanay oo ah safarka inta qofku ku noqday plus another $3000 over for security visa plus another the wax ciidda laga wasana $8000 buu qofku ku baxaya. projectki markuu ay ka yahay walaalo de waxa weeyaan overheadkii ayaaba ka badan wixii projectka loogu talagalay. Maxamed Idris Saban waxa uu ii sheegay in 25% dhaqaalaha OIC ay ugu talagashay mashaariicda Soomaaliya inay ahayd inay ku baxdo mashaariic laga hirgelinayo Somaliland. waxa uu soo jeediyay in mashaariicdaasi la bilaabo, balse ma uusan ogeyn in goor hore xafiiska Muqdisho uu u gudbiyay xafiiska Jidda qiyaasta lacagta ku baxaysa barnaamijyada gurmadka degdega ah, gaar ahaan kuwa iftaarka. balse xafiiska Jidda uu hakiyay mashaariicdaasi maadaama lacagta lagu qiimeeyay inay ku baxayso ay badan tahay marka loo eego dadka qiyaas ahaan ka faa'iideysanaya.
maxamed idris saban ayaa iiga warramay sida ay wax u dhaceen. iyagu markii hore waxay ahayd $100,000 in minimum kun faami ha loogu iibiyo. iyagu waxay kasoo qaadeen 500 oo faami unbay ku filanta. waa gartay. waa sida markii dambe laygu sheegi doonaan warkii hore warwaxay. waa gartay. anigu sidii honestigayga sameeyo 1,200 families noqday. markaasaa markiiba lasoo abruufgareeyey, lacagtiibaa koonkeyga lagu soo shubay. lacagtani waxay noqotay luqmatal xaruuq ayay ku noqotay raggii hishaam yuusuf iyo ninka maxamed idli iyo colkoodii. the minute aan arrintaasi gacanteeda soo gashay waxaa lagu yidhi waa in la sameeyo in ninkan la eriyo, lacagtaasina bixin baya lacagtaas hadday naga baxdo waxaynu cunaynaa for the coming 2 years ma dhici doonto. marka waa in ilooba ilaa la joojiyo lacagtaas si aynan u bixin una ninkaasi u qaadin. bishii December 2016 waxaa si lama filaan ah shaqada looga cayriyey maxamed idris saban, waxaana uu isagu aaminsan yahay in loo dhigay shirqool lagaga takhalusayay loogana saarayay xafiiska OIC. maxamed idris saban waxa uu sheegay in madaxda OIC aysan ilaa haatan u sharaxin sababta uu xilkaasi ku waayey, waxaana uu sheeganayaa cadaalad darro. ninkii secretary generalka aniga waxba iga weydiiyey, walaa ima soo qorin, ima xasuus, xataa aniga waxba ima soo dilin. xafiiska uu diray anigu hargeysa jooga, xafiiska la iga soo diray oo markaa waxaan arrintan aan ku sheegay mashquulka alaa ayi xaal waxay ahayd coup d'etat afgembi leelayay inay lacagtaasi bixin by hook and by crook, sidoodiina way u dhacday. horaantii sanadkii 2018 OIC waxay go'aansatay inay baaritaan ku samayso xafiiska Soomaaliya. natiijada baaritaanka uu codsaday ururka iskaashiga islaamka in lagu sameeyo xafiiskooda Soomaaliya ayaa soo baxday bartamihii sanadkii hore. galka baaristu waxa uu helay nuqul ka mid ah natiijada baaritaankaasi. warbixintaasi oo uu sameeyey baare madax bannaan waxaa ka soo baxday in xafiiska iyo barnaamijyada OIC ee Soomaaliya loo maamulay qaab aan wanaagsanayn. waxaa warbixintu sheegtay maamul xumo, ku tagrifal awoodeed iyo mid dhaqaale ee gargaarka iyo mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya. warbixinta waxaa ku caddaa in xafiiska Soomaaliya uusan ka soo bixin mas'uuliyaddii bani'aadminimo. waxaa warbixintu ay shaaca ka qaaday inay jiraan in xafiisku uu si joogto ah ugu guuldaraystay maamulka shaqaalaha iyo maalgelinta bani'aadminimo. waxay sheegtay in xafiiska howlaha bani'aadminimada OIC qaybtiisa Soomaaliya gebi ahaanba dhaqaalihii uu ku shaqaynayay uu ka go'ay. waxaa lagu sheegay warbixintaasi in wejigii koowaad ee 5 mashruuc ee horumarinta ee ka socday Soomaaliya ayna maalgelinaysay Saudi National Campaigns oo la soo bilaabay sanadkii 2013 aan weli la dhammaystirin. waxaa warbixintu ogaatay in 3 ka mid ah 5taasi mashruuc ay fuuqsadeen dhaqaalihii loogu talagalay wejigii hore iyadoo aanay hirgelin. waxay sheegtay in loo baahan yahay in mashaariicdaasi la daba qabto oo la dhammaystiro iyadoo shirkadihii horena laga joojinayo shaqada, shirkado cusub oo dhammaystirana la siinayo 30% lacagta mashruuca loogu talagalay ee aan weli la siinin shirkadihii ay ahayd inay hirgeliyaan mashaariicda. lacagta loo hormariyey shirkadaha dhammaantood intii lagu jiray wejiga hore waxaa lagu sheegay inay ahayd lacag ka badan $3 milyan. warbixintu waxay si weyn u dhaleeshay madaxii OIC ee xafiiska Muqdisho Maxamed Idla Sabriye iyo madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada OIC ee fadhiya magaalada Jidda Rami Inshasi. baaritaanka OIC ee xafiiska Soomaaliya waxaa sameeyey Muuse Faarax oo la taliye u ahaan jiray ururka OIC. waxyaabahan maqlay markaa waxaa ka mid ahaa in raashinka marka hore dadka ay u qaybiyaan sawirriyo waxa ay sameeyaan anaga sawirrahan baa loo soo diri jiray intaasoo qof baa raashinkii la gaarsiiyey baa la oranaya. haddana marka dambe waxaa dhici jirtay baa la yidhi dadkii la yidhaahdo waxyar inta la siiyo iska socda oo aan raashinkii lagu sawiray xataa la siin. marka dhibaatooyin fara badan oo caynkaas waa iska jireen. waxaa kaloo warbixintu ay ku talisay in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshasi laga wareejiyo maamulka xafiiska dhaqaalaha ee Soomaaliya isla markaana baaritaan lagu sameeyo. waxaana ay taasi sabab uga dhigtay inuu si xun u maamulay dhammaan mashaariicdii arrimaha bani'aadminimada ee Soomaaliya.
waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in markii xafiiska arrimaha bani'aadminimada ee OIC uu isku dayay inuu qandaraasyo cusub siiyo shirkado cusub oo dhammaystira mashaariicda qabyada ah in madaxii xafiiska arrimaha bani'aadminimada Rami Inshasi uu kelidiis maamulay qandaraasyadaasi waxayna taasi keentay in laba mashruuc oo ku kacaya 1.5 milyan oo dollar qandaraaskooda la siiyay laba shirkadood oo isku leeyahay qof kaliya qofka labada shirkadood iska leh waxa baaritaanka lagu sheegay inay ehel yihiin Rami Inshasi baaritaanka OIC waxa kaloo lagu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye oo ku shaqaynayay inuu yahay kusimaha agaasimaha xafiiska OIC ee Soomaaliya inuusan haysanin qandaraas rasmi ah oo uu ku shaqeeyo waxay sheegtay warbixintu in Maxamed Iidla Sabriye uu qabanayo hawlihii madaxa xafiiska Soomaaliya isagoo aan haysanin sharciyadii isla markaana sharcigii uu gacantiisa ku wato isagoo qaadanaya go'aano dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah waxay warbixintu sheegtay oo kale in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay mashaariicdii iftaarka bisha Ramadaan ee sanadkii 2017 oo ay ku jirtay qaybinta timir iyo cunto kale oo la siinayay dadka sooman waxaana warbixintu sheegtay in qaybinta cuntadaas uu u xil saaray shirkado isagoo aan siinin wax qandaraas ah oo munaasib ah waxaana sidoo kale uu lacag siiyay shirkadahaasi isagoo aan ansixin ka helin xafiiska maaliyadda sida ay sheegtay warbixintu waxay intaas ku dartay in Maxamed Iidla Sabriye uu si xun u maamulay barnaamijkii afurinta ee 2017 waxaana iftaarkaasi maalgelisay hay'adda King Salman Relief Center waxaana baaritaanku uu ku eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sameeyay takrifal hay'adda King Salman Relief Center oo laga leeyahay Sacuudiga ayaa iftaarka ku bixisay lacag ku dhow 1.7 milyan oo dollar iyo lacag kale oo dhammayd 500,000 oo lagu xawilay xafiiska OIC ee Soomaaliya 2 November 2017 waxaana lacagtaasi dambe ay ka dhignayd qaybtii ugu dambeysay ee lacagta la siinayay 17 shirkadood oo maxalli ah oo xafiiska Soomaaliya uu gudbiyay liiskooda si ay u qaybiyaan timirta iyo cuntada Ramadaanka lacagtaasi markii la dirayay waxa la socday liis muujinaya shirkad kasta iyo lacagta ay leedahay iyo magaceeda waxaase lagu eedeeyay Maxamed Iidla Sabriye inuu sarkaalkii maaliyadda u qaabilsanaa xafiiska Soomaaliya uu ku amray inuu diyaariyo liis cusub oo lagu salaynayo lacag siinta shirkadaha waxaana wax ka bedel lagu sameeyay sida ay warbixintu sheegtay lacagaha la siinayay shirkadaha ku jiray liiska dambe waxay sheegtay warbixintu in la dejiyo liis cusub oo uu ku jiray magaca mid ka mid ah shaqaalaha OIC ee xafiiska Muqdisho waxaana shirkadaha qaarkood la siiyay lacag ka yar lacagtii ku jirtay liiska asalka ahaa ee loo gudbiyay xafiiska Soomaaliya waxaa kaloo baaritaanku uu sheegay in Maxamed Iidla Sabriye uu lacag dhan 28,000 oo dollar uu siiyay mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska Muqdisho lacagtaasi oo 22,100 ka mid ah lagu sheegay inay tahay kirada 17 baabuur oo la kireystay 13 maalmood iyadoo wax cadayn ah aan laga bixin sababta baabuur sidaas u tiro badan loogu baahday muddadaas iyadoo dhinaca kalena xafiisku uu sheegay inuu qandaraas kula jiro shirkad kale oo bixinaysay gaadiidka uu isticmaalo xafiisku shirkadaasi oo horey loo siiyay lacag ka badan 132,000 oo dollar sida ay qortay warbixintu Muuse Xaaji Faarax oo baaritaanka sameeyay waxaan weydiiyey guud ahaan lacagta mashaariicdan ku luntay inta ay dhan tahay horta runtii dee lacag ahaan ma ahayn waxa weeye wixii raashin dibadda laga keeno dibadda ayaa inta badan iyo distribution sameynayeen ee ma ahayn wax yani lacag toos oo iyaga loo soo dirayay ma jirin ama toos loo siinayay marka waxaan ku qiyaasi karnaa yani waa alaab yani cunto aad u fara badan oo waqtiyo badan oo kala duwan yimid weeyaan waxaan sida kale marka loo isticmaalay cunto noocee ahayd nooc waxyaabaha la cuno misalan sonkor bariis saliid timir marka mashaariic la fulinayay maysan jirin oo mashaariic bay sheegeen xarumo la dhisay oo kale mashaariic iyagu dhismayaal iskuulaha jiray marka kuwa iyaga waa iskuuladii waa la sameeyey inkastoo facekii ugu horreeyay uuna ay arrintu ilaa iminka ku yani waxyaabaha runtii sababay ka mid ahayd ba in meeshan dhibaata jirta lagu ogaaday 5 mashruuc baa jiray oo waaweyn oo ahaa maxaan ku idhahdaa agricultureka yani beeraha iyo tacliinta iyo caafimaadka iyo aduu labada kale waxaa emergency iyo social welfare marka waxaa dhacday laba kamid si aan oran karno yani caadi ayay u socdeen facekoodii ugu horreeyay oo iminka gabagaba ah waxaana waxay kala yihiin tacliinta iyo
iyo maxaan ku dhahdaa caafimaadka labadaas iyagu waa yani si fiican bay u dhaceen. saddexda kale ayaa markaa mushkiladu ahayd oo saddexdii kale waxaa dhacday in ay waxbaba yani after 5 years almost 4.5 yani 5 years dowdow ay waxba la arkay inaan wax la sameeyay jirin. marka waxaan oran karnaa lacagtaasi ilaa 3 milyan iyo 300 baa yani shirkadihii la siiyey as a first payment 50% kii ugu horeeyay shaqada kadibna wax shaqo oo ay qabteen ilaa hadda aanay jirin. marka waxaan oran karaa lacag ahaan 3 milyan iyo 300 meelahaas ay noqonaysaa 3 milyan. Muuse Xaaji Faarax waxa uu sheegay in ururka iskaashiga islaamka ay ka fikirayaan inay maxkamad la tiigsadaan shirkadaha ku guuldareystay inay fuliyaan mashaariicdii Soomaaliya. ma waxa ku baqatay shirkadahan contractka la siiyay oo runtii waxay ahayd shirkado iyo qisad dheer weeyaan shirkado 3 shirkadood oo Sacuudiga ah weeyaan laakiin iyagu waxay yiraahdeen local contractors baan siinay. marka waxa laga yaabaa in lacagtu kulunteen labadan dhexdooda yani kuwan shirkadahan Sacuudiga iyo kuwa localka ay siiyeen. marka hadii arrintaasi lafteedu arrin dhamaatay ma aha oo waa arrin lagu daba jiro legally yani in xataa court ay gaadhaan rajeenayno. marka wali waxa yani already waan sheegnay in shirkadu yani OIC-du waa sheegtay in saddexda shirkadood contractkoodii la cancel gareeyay dabeetana ay arrintu ay legal noqonaysa maxaan ku rahdaa court case oo arrintu ay dacwad noqonaysa. marka maxamed iidle sabriye isagu lugmu ku lahaa fulinta saddexdan mashruuc saddexda hay-adood hawsha wadeen. dabcan isagu xafiisku madax ka ahaa markaa isagaa u sareeyeyna yani saddex shirkadoodba la macaamilkooda iyo maxaan kala xiriirkooda isaga ninkii laga wareysanayo isaga iyo ninkaan ku xafiiska way joogay labadaa nin bay ahayd inay mas-uul ka noqdaan. marka labadiiba runtii dee waxaa loo arko inay noqdeen dad yani xilkoodii soo bixi waaye. ninkaa kale maxaa la yidhaha? waxaa la yidhahaa rami inshasi baa la yidhaha. rami inshasi waa Falastiin weeye asalkiisu laakiin in Egyptian passport ku sitaa. inkastoo warbixinta baaritaanka OIC ay ogaatay in qandaraasyada uu bixiyay Rami Inshasi isagoo aan la tashan xafiiska Muqdisho haddana waxaa xafiiska madax ka ahaa Maxamed Iidle Sabriye waxaana warbixintu ku talisay in marka la eego sida uu maamulay mashaariicda iftaarka iyo xafiiskaba laga joojiyo awoodaha maamul iyo kuwa maaliyadeed ee uu leeyahay. haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka Maxamed Iidle Sabriye waxaanan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista waxaanan Maxamed Iidle Sabriye siiyey fursad ah inuu istifaaco kadibna waxaana dhex maray sheekadan. niyahow horta waa maasan tahay waxaan jeclaan lahaa in arrintan hadda aanan ka hadlin maxaa yeelay OIC aniga weli ma kala dhammaanin arrintaasna igu cusub tahay aniga OIC-na iyo dad ka shaqay jiran xumaan kumaana kala tegin. marka adigoo mahadsan markii OIC aan kala dhammaano ayaan wixii aan ku siin karaa walaal adoo raalli ah. waxay ugu dhaheen in fact OIC dad ka tirsan waan la hadlay waraaq bay ii soo direen oo taariikhdeedu ay tahay 10 Janaayo. Harun waxaan ka codsanayaa waa kuu sheegay waxaan ku yiri OIC iyo shaqaalaheeda iyo waxa weli maana kala dhamaan. waan kala dhamaanay dhaheen iyagu waan kala dhamaanay ma kala dhamaanin oo weli waxba dhiman. maxay isugu keendiman marka waxaan ka codsanayaa arrintaas hadda kama hadli karo ilaa aan OIC horta aan maxaan ku rahdaa si fiican u kala dhamaano. maxaa isugu keendiman iyagoo laba waraaqood baan ka hayaa midna ay dawladda u qoreen midna adig kuu soo qoreen. kula hadli karaa mid waraaq baan hayaa kuu soo qoreen eeday kuu soo jeedinayaan oo shaqadana ay leeyihiin way kaa dhamaatay. waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo marka ay munaasib tahay adoo raalli ah. anu barnaamijkii haddaan sii daynaya marka Harun waxaan ku sheegayaa yani aniga warbixintaas hadda kuma sii karo weli aniga OIC kalama dhammaanin wayfan Soomaano. waxa daraaddeed markaan kala dhamaano ayaan ku sii karaa wixii macluumaad adiga raadinayso. waxaan rabay inaan fursad kuu siiyo inaad ka jawaabto eedaha lagu soo jeediyay qaar oo ay ka mid yihiin tagrifal
كميدي مسق ماسق كميدي ناس شقالة قاركود سحولا معامشي هذا حسن ربينا كجواب وقتي قبان كصوعه وقتي قبان كصوعه وقتي أن كسينه وحويا ولا لو مركي أن كلنا من أويس وحيرا دم تاريخي قبو وما سكر أي حرنتها أي إلى نحن كنا كلنا من أويس iyaga laba waraaqood baan ka hayaa midna dawladda Soomaaliya ay u qoreen dawladda Soomaaliya aan xafiiska Soomaaliya ee ururka Islaamka u qoreen midna aday ku soo qoreen labadaba waxay ku sheegeen in shaqadii ay ka dhamaatay labada ima soo gaarin aniga soo siinaya markii waxay dhamaadaan wali ma adaa madax ka xafiiska OIC ee Soomaaliya wax faahfaahin oo ku sii kara ma jiro aniga OIC wali kala ma dhamaan inta kaliya ayaa ku wakeynaya waxaad ka warhay dhamaano waxartii weydiima laakiin waxaad ka warhaysaa in mas'uul cusub loo magacaabay xafiiska OIC maxamed cigaal warbixin waxaan ku sii karaa markii aniga OIC kala dhamaanay mar kale ayaa isku dayay inaan khadka telefoonka kula xiriiro maxamed idla sabriye hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan ku wacayay galka baaristu waxa kale oo la xiriiray Raami Inshaasi oo ii sheegay inuusan ila hadli karin laba sababood dartood waa tan hore in laga wareejiyo xafiiskii arrimaha bani'aadminimada loona wareejiyay xafiiska arrimaha dhaqanka iyo tan labaad oo ah inaan loo ogolayn warbaahinta inuu la hadlo markii aan u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista ee ku saabsan maamul xumada 5 mashruuc ee ahayd in wajigooda hore lagu dhameystiro 5 sanadood iyo maamul xumada lagu sheegay warbixinta ee qandaraasyadii uu siiyay shirkadaha kale waxa uu igu yiri waan la yaabanahay waxa aad sheegaysid waxaad la xiriirtaa kaaliyaha xogayaha guud ee OIC waxaan la xiriiray kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha bulshada iyo bani'aadminimada Hisham Yusuf oo uu eedayn u jeediyay ambassador Maxamed Idris Saban waxaana u sheegay macluumaadka uu helay galka baarista Hisham Yusuf waxa uu ii sheegay inaanu wareysi bixin karin ugu dambeyn galka baaristu waxa uu wareystay kaaliyaha xogayaha guud ee ururka iskaashiga islaamka ee arrimaha maamulka iyo maaliyadda Cabdalla Al-Mansuur waxa uu difaacay Hisham Yusuf oo uu sheegay inuu kalsooni ku qabo Cabdalla Al-Mansuur waxa uu ii sheegay inuusan la macaamilin Raami Inshaasi laakiin uu aaminsan yahay inuu sharciga ku socdo oo wax qalad ah uusan samaynin haddii aan wax qalad ah ku helana ayuu yidhi tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa Cabdalla Al-Mansuur waxa kale oo uu sheegay in Maxamed Idla Sabriye qandaraaskii ka dhamaaday kadibna ay diideen inay u cusboonaysiiyaan waxa uu sheegay in iyagu leeyihiin mas'uuliyadda go'aanka ay ku soo afjareen qandaraaskiisa mana aha ayuu yidhi wax sharci darro ah inaan samaynay Cabdalla Al-Mansuur waxa uu qiray in mashaariicdii OIC ay ka waday Soomaaliya si xun loo maamulay there was some let's say failure in implementing the contracts which we signed with the companies so we stopped jiray in shirkaduhu ay ku guuldareysteen hirgelinta qandaraasyadii aan saxeexnay kadibna waan ka joojinay waxaana markaasi kadib qandaraas kale aan la saxeexnay shirkado kale shirkadihii cusbaana dhibaatooyin kale ayaa ka soo baxay waa taas sababta mashaariicda badankooda ay dib ugu dhaceen waxaan samaynaynaa intii karaankeena ah sidii loo dhameystiri lahaa qandaraasyada dhiman ee la saxeexday shirkadaha cusub Cabdalla Al-Mansuur waxa aan weydiiyay cidda mas'uulka ka ahayd guuldarrada ku timid hawlahooda gargaarka Soomaaliya iyo inay mashaariicdu wada hirgeli waayaan everybody has his own understanding his own views everybody blaming each other but I cannot qof walba fikradiisa ayuu noqdaa waqti ayaa la isku wada fiiqaya qaar waxay leeyihiin waa inaga khalad qaar kale waxay leeyihiin iyaga khalad qaar dowladda ayay eedeynayaan qaarna xafiiska waa la iswada dhaliilaya taasi hadda muhiim ma aha waxa muhiim hadda waxa weeye waxaan xafiiska u magacaabnay agaasimo si kumeel gaara u sii maamula ilaa aan agaasimo rasmi ah ka magacaabayno xafiisku waxa uu ahaan jiray xafiis arrimaha bini'aadanimada keliya ka shaqeeya waxa kale oo ahaa xafiis ka shaqeeya arrimaha horumarinta xilligan xafiiska waxa loo bedelay xafiis goboleed ahna mid siyaasadeed waxaana arrintaasi ku dhawaaqay xafiiska xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka OIC waxa kale oo aan weydiiyay Cabdalla Mansuur sababta ay u ogolaadeen in madaxa xafiiska arrimaha bani'aadminimada Raami Inshaasi uu qandaraas siiyo laba shirkadood oo uu leeyahay nin ay ehel yihiin it's right as you are mentioning okay I agree with you it is a conflict of interest but nobody say that it is officially he has a relation as you mentioned
waana dana isku imanaya laakiin ma jiro qof si rasmi ah u oranaya suurtagal ma aha in wax kasta si faahfaahsan loo sheego xilligan qandaraaska weli waa laga wada hadlayaa weli waa waan iyo hirgelin ayaa socota waxaan filayaa inaad igu raaci doontid inaan wax walba la sheegi karin iyadoo aanan dhammaystirnayn ama aanay soo dhammaanin waxaa suurtagal ah in ay maxkamadi gaadho go'aanka waxaa suurtagal ah in heshiis la gaadho sidaasi darteed ma habboona in wax kasta la sheego hadda xafiiska waan ka maqanahay mana wada hayo faahfaahinta oo dhan 29 Janaayo xafiiska ururka iskaashiga islaamka ee Jidda waxay xayeysiiyeen shaqada agaasimaha xafiiska Soomaaliya